ismariwaaga dhanka doorashada ayaa weli ka taagan Soomaaliya. Shirar dhowr ah oo ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa natiijo la'aan ku soo gabagaboobay ka hor inta aanu madaxweyne Farmaajo muddo xileedkiisa 4 sano dhammaan 8 February. midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa bari oo jimcahan ku baaqay mudaharaadyo ay sheegeen in lagu muujinayo dareenka shacabka ee ku aadan ismariwaaga doorashada. Haddaba isu soo baxa dadweyne ma yahay mid ku habboon xilligan dooda caawa waxaynu ku eegi doonaa qodobkaas waxaan igala qayb galaya Yuusuf Xasan Mursal oo ah gudoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka qaran iyo Cabdisalaan Salwa oo ah falanqeeye siyaasadeed oo labadaba qadka ay toos ugu jiraan. Cabdisalaan iyo Yuusuf soo dhawaada aan ku hormaro Mursal. Yuusuf xilligan ma yahay xilli ku habboon isu soo bax dadweyne? waxaan salaamayaa saaxiibkay khadka igula jira dooda igula jira Cabdisalaan Salwa. xilligan annaga waxaan u aragnaa inay tahay xilligii ugu habboonaa banaanbaxyo la isugu imaan lahaa. sideedana banaanbaxu waa qodob dastuuri ah oo dastuurkeenna maaragtay ii sheeg dadku u baneeyey weeye. qodobka 20aad ee dastuurka ayaa wuxuu banaynayaa in muwaadiniinta ama muwaadin kasta uu xaq u leeyahay inuu dareenkiisa ku muujiyo banaanbax nabadeed, banaanbax silmi ah, cabashooyinka qof walba maaragtay cabashadiisa uu ku muujiyo. qodobka 20aad ee dastuurka farqooyinkiisii 1 iyo 2 ayaa horta banaynaya. waana habka runtii maaragtay nidaamka dimuqraadiyadda lagu muujinayo weeye. waxaan u aragnaa inuu ku soo aaday xilligii ugu habboonaa oo loo baahanaa in banaanbax nabadeed la isugu imaado. horey ayaa loo rabay in banaanbax nabadeed Muqdisho laga sameeyo. Yuusuf, Cabdisalaan ayaan u wareegaya. Cabdisalaan, ma kula tahay adigana in ay ku habboon tahay xilligan in la isugu yimaado mudaharaad? السلام عليكم أديك يا صاحبي مرسل walaal ma habboon tahayna waa shay yani dhinaca sharciyadda iyo markii laga eego baahida loo qabo madaxadeygii dhinaca dawladda muddo ka taagnaa qabashada doorashooyinka iyo tii ugu dambeysay markii la yiri inta arrinta isku cakirmatay la yiri xataa arrinta hadee bacdama anagu in badan is aragnay haddaan nahay dowlad goboleedyada dawladda bal saamileyda kalena aan ku soo darno haddana yani arrintii inta la garwaaqsan waayay la iska agmaray dadka siyaasiyiinta jooga Muqdisho xaq iyo sharci inta waa u leeyihiin inay qabtaan. laakiin dhinaca kale concernka waxay ila tahay inaad ka wadid arrimaha caafimaadka iyo covid iyo arrimaha quseeya. haddii ay taas tahay waa looga maagan karay si kale, laakiin taas waa mas'uuliyad equally saaran dhinaca dawladda oo la rabay in ay arrimo badan tixgelinaysa inay arrintaas si kale u maarayso, laakiin way ku fashilantay. waan gartay Cabdisalaan, waxaan dadweynaha kaga cudur daaranaynaa dawladda Soomaaliya barnaamijkan waan ku marti qaadnay balse way suuragali weysay inay nagala soo qayb galaan. isla Cabdisalaan ayaan ku celinayaa su'aasheeda. Cabdisalaan, beesha caalamka walaac ayay xaaladan ka muujisay. marka adiga sideed u aragtaa digniinta safaaradda Mareykanka ay ka soo saartay dibadbaxaas jimcaha lagu baaqay? Cabdisalaan, walaalow arrinta safaaradda Mareykanka waxa ay soo saartay digniintaas waa digniin standard ah. meel kasta qof kasta oo Mareykan oo adduunka degan oo adduunyada kale tagana waa yaqaana safaaradda ama Copenhagen ha fadhido ama Nairobi ha fadhido ama Muqdisho ha fadhido banaanbax kasta marka uu jiro dadkeeda waxay u dirtaa fariin ah halkaas banaanbax baa ka jira, arrintaas baa jirta, yaan la tagin, ha laga fogaado. marka waa arrin guud oo ma aha arrin hadda si gaar ah oo khusaysa Soomaaliya iyo arrin siyaasadeed midna ma aha. waa maasantahay Cabdisalaan. Yuusuf ayaan markaan aadayaa. Yuusuf, ammaanka haddii aynu eegno dooda jirta waxay leedahay dastuurka waxa uu ka hadlayaa dal degan oo xasiloon, laakiin magaalada Muqdisho amnigeeda gabi ahaanba ma sugna. sow qalqal amni oo dheeraad ah ma keeni karto dibadbaxaas inuu dhaco? Yuusuf, qodobka 20aad ee dastuurka ku-meel gaarka ah ee dalkan Soomaaliyeed uu leeyahay wuxuu dhigayaa in muwaadin kasta cabashadiisa uu ku muujin karo banaanbax nabadeed. nabadgeliyada ama amnigana waxaa laga rabaa xukuumadda markaa joogta ayaa laga rabaa. markii la qorayay qodobkan dastuuriga ah ee qodobka 20aad la qorayay waxaa loo qoray macnaha si waadax ah. adigaa lagaa rabaa oo dawladda laga rabaa
in muwaadiniinta ay isu soo baxay oo dareenkooda muujinaya nabadgelyadooda ay sugto waxaa kaloo jirtay banaanbaxyo badan oo lagu taageersan yahay dowladda oo lagu mashxaradayay ayaa ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo xaaladda amnigana ay sidan tahay marka waxaasoo dhan annaga waxaan u aragnaa wax la siyaasadeynaya inay yihiin xaaladda amniga ee dalka laakiin cabdisalaan laakiin yuusuf ma aragtaan miya in covid 19 hadda uu jiro oo meelo khatar uu gaaray xaaladii amnigana ee weli qaraxyadina weli Soomaaliya ka dhacayaan marka dawladda soo iyadana mas'uul kama saarna si ay arintaas u celiso inaysan mudaharaadyada mararka qaar joojiso xaaladda amniga guud ahaan dalka Soomaaliyeed waa la ogaa iyadoo maaragtay qaraxyada ay dhacayaan oo dilalka kale oo qorshaysan ay dhacayaan ayay haddana dadku banaanbaxayeen banaanbaxan golaha murashaxiinta iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee sida dimuqraadiyadda leh oo maaragtay markii dalkooda xaaladda hubanti la'aanta galay isugu soo baxay horta wax gooniyaha uu qaban male tan kale markay timaado cudurkan covid-19 cudurkan waxa adduunka lagu arkay 2019 ayaa adduunka lagu arkay magaciisa ayaan laga dhadhansan karaa waa cudur soo jiray sanadkii aan soo dhaafnay oo dhan precautionskiisana waa la sameeyay taxadirkiisa waan ku talagalnay dadku waxaa loo qaybin doonaa sanitizerskii maaragtay iishe gacmaha isaga dhaqi lahaayeen afxirkii face maskii ayaa loo qaybin doonaa xagga amnigana aad loogu talagalay waan ku soo laabanayaa Yusuf waan kugu soo laabanayaa Absalan mudaaraadkaas berrito lagu baaqay suuragal ma tahay in qalqal siyaasadeed iyo xaaladda hadda ka jirta iyo in halkaas ay wax ka dhacaan maxaa dhici kara ka wuxuu damaanad qaadaa xuquuqo tiro badan xuquuqahaas waxaa ka mid ah amniga waxaa kaloo ka mid ah yani oo ah xuquuqda kuwada muwaadinka waxaa kaloo ka mid ah yani xaqa isku soo baxaya cabiraadda ra'yiga dastuurka meelna ugama qorna in haddii xuquuq la bixinayo mid kale ay ku kacayso tusaale ahaan kuma qorna meel dhahaysa si amnigaaga loo sugo xaqaaga waxaa la laalay isku soo baxa marka dawladda ayay mas'uuliyaddaas saaran tahay ayaan filayaa waa jeclaan lahaa inuu caawa fadhiyo qof dawladda u hadla oo doodahan uga jawaaba laakiin yani dawladda mas'uuliyad saaran weeye sidoo kalena waxay ila tahay inay ku talagaleen arrinta covid-ka ah guddiga qabanqaabinaya mudaaharaadkan way ogyihiin xilliga lagu jiro way ogyihiin waxyaabaha qaarkood inuu yidhahdo super spreader wax la yidhahdaa jira duruufo yani waxaa jira cudurkan aad u faafiya waxaa ka mid a mudaharaadyada haddana saasoo tahay iyagoo og ayay qabteen marka waxay ila tahay duruuf arrintaas kaga xanuun badan oo kaga weyn ayaa hortaalla way uga jawaabayaan marka waxa kaliya oo lagu xallin karina waxaan qabaan kusoo celinayaa inay tahay dawladda oo ka jawaabta macnaha waxa ay codsanayaan iyo dalabaadka ay hordhigeen oo markaas sidaas uga hakin lahaa laakiin mas'uuliyaddaas waan ka xumahay wey laakiin cabdisalaan mudaharaadyo kala hore u dhacaa la leeyahay marka haddii xitaa kuwaasi sida ay ku dhaceen aysan habbooneyn ama qalad ahaayeen marka ma tahay haddana qalad kale in la galo cabdisalaan maya khalad in lagu saxo ma ahan laakiin haddana mas-uuliyaadka loo kala leeyahay oo loo kala sareeya macnaha dawladda ayay mas'uuliyadda ugu sarreysa ay saaran tahay in ay labada xuquuqda bayadhowrka iyo badqabka muwaadiniinta iyo tan jismigaba ay keento dhinaca kalena ay ogolaato inay dadka ra'yigooda cabiri karaan soomaaliyana ilma keli kuma ahay haddeer markii meelan ka daran soomaaliya oo maraykanka uu ka mid yahay afrika ay ka mid tahay ayay mudaharaadyadu si joogta uga dhacaan iyadoo ay duruufaan jiraan marka way fiicnayd waana ila qumanayd shakhsiyan aniga waa ku taliyay in la baajiyo laakiin oo dadkii aan aqaanay aan la hadli karay laakiin ayagana waxaa kolley iyo kolley duruufta ku kaliftay in ay qabtaan mudaharaadkan maalintan ay qabtaan ayaa jiray oo wixii heerkaas iyo cadaadiskaas gaarsiiyay meesha ku jira una baahnaa in la xalliyo intaysan heerkaas gaarin waa mahadsan tahay cabdisalaan yuusuf berrito waxaad ku baaqdeen dibadbaxaasi marka wixii dhaca mas-uuliyaddeeda yaa qaadaya berrito idinka maxaa taxadar ood sii samayseen taxadir weyn ayaa la sameeyey guddiga qabanqaabada ee banaanbaxa berrito jimcaha ah ka dhacaya magaalada muqdisho waxay sameeyeen taxadir weyn markay timaado xagga caafimaadka ama ka taxadirka xagga covid-19 dadku waxaa loo qaybin doonaa maaragtay ii sheeg bahalkii wejiga lagu xidhanayay waa tahay laakiin haddii ay wax dhacaan mas-uuliyadda ma qaadaysaa waxaa kaloo loo qaybin doonaa bahalkii ay gacmaha maaragtay ii sheeg Yusuf haddii ay wax dhacaan yaa mas-uuliyadda qaadaya taxadirkaas oo dhan markaad samaysaan kadib mas-uuliyadda waxaa qaadaya cidda loo doortay oo waqtigeedu ka dhammaaday iyadoo doorasho qaban weysay oo dawladda federaalka ayaa qaadaysa mas-uuliyadda sideedaba dhulka ma dhacdo dhaxdana ma taalo
haddii laakiin cabdisalaam yuusuf dowlad dadka iskuma wicin oo aan yuusuf adinkaa dadka isu wacay soo mas-uuliyad ma lihidiin qaadaya dowladda dowladda dadka ma wicin adinkaa wacay marka sidee ay dowladda mas-uuliyad ku qaadeen mudaaraada idinku iclaamiseen dadku waxay ku soo baxeen qodob dastuuri ah qodobka 20aad ee dastuurka dalkooda ayaa u banaynaya in cabashadooda ay ku muujiyaan banaanbax nabadeed dowladduna waxay u xil saaran tahay inay muwaadiniintaasi ay nabadooda sugto ayaa rabaa horta arrintu laba ma ahan dowladdu waxay u xil saaran tahay muwaadiniintaas inay ilaaliso si xasilooni ah banaanbaxooda nabadeed ay ku samaystaan oo ay ku baaqeen la isugu tago iyadaa laga rabaa marka inay amniga sugto waad mahadsan tahay yuusuf xasan ayuu ahaa iyo cabdisalaan salwa oo qadka toos ugu jiray oo kala joogay muqdisho iyo magaalada nairobi aad ayaad u mahadsantihiin yuusuf iyo cabdisalaan